وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الشيخ حسن قليف آدي آدو ما تسيهي كل والد رقي قلبت وعيلتهاي محاضرتي أن تمنيني مدده وأنو هلنيا لدي كرا إلهي هنوافعه وعد قاس يكلمة قرآن البضان أو شيخنا نسو جيديي فضل القرآن كهديتهاي هي هديتهاي صالحينتي وناكسنين سيدي لوغو ضيالهاي انت وشيخ واو شيخ قرآنكو سيدا سيخو شيخي aad buu u fadli badan yahay weliba dhalinyarada gaar ahaan waxaa la rabaa in ay kelimaadka shiiqa ka faa'iidaystaan dadkan waxay isugu jiraan dad qur-aanka yaqaana oo xufaada dad mutawasidiin oo meel dhexa maraya kuwa hadda dhameeyo xifdiskii ilaahay hadduu yidhaahdo oo u socdo kuwa bilaab ahoo alif wax male hadda maraya qolaba meelay ku joogtaa qoladii marka qur-aanka ilaahay makeniyey inay dhammeeyaan oo haddana ilaahay uu sii daray inay xifdiyaan kuwaas ayaa ugu nasiib badan marka muxaadaradu saameynta ugu weyn qoladaas ayay ku yeelaysa dhammaan iyadoo nagu yeelaysa haddana si gaara gruubka qur-aanka yaqaana oo haddana cilmiga bartay oo macaahidda diiniga ku taxan oo tafsiirka akhristay ayuu si gaara usii taabanaysay muxaadaradu u taabanaysay walaalayaal qur-aanka ilaahay laba qodob gaagaabanan ka hadlay insha allahu tacaala mid waxa waaye qur-aanka horta marka la akrinayo waxaad akrinaysaa waa kalaamka ilaahay inaad marka ogaato inuu yahay kalaamka ilaahay oo si aadaab leh oo sharaf leh aad u akriso oo uu qur-aanku kula weynaado ilaahay kalaamkiisiaad akrinaysaa bimacnaa ilaahaad la sheekaysanaysaa wey ilaahaad la koodaysaa wey qof madaxa ama qof aada jeceshaa maanta hadduu kugu waco ee aada u tagto markaad la hadlayso afka miyaa iska taagtaage ma iska qosqosle mase waxaad noqonaysaa qof diyaarsan oo qofkaas ixtiraamaya o dhaqdhaqaaqa yaraynaya oo qosqosolka yaraynaya oo waxa weeye warka uu ku weydiiyey inaad uga jawaabto bis ayaa u diyaar garoobaysaa ama danta aada leedahay oo adugu aada rabto inaad weydiisato keliya aa u diyaar garoobaysaa kitaabka ilaahay ka waran marka qofka madaxdaa markaad u tegayso ama qofka aada jeceshahay lebisaad qaadanaysaa bahal qamiisa ama suudaad ku dhacaysaa barafuun waa ismarinaysaa waa salidaysanaysaa aad baad u cadyanaysaa waa iscatarinaysaa adoo kala kacsanaad aadaysa qur-aanka markaad akriyana adoon cadyan oo afkaagii waxa weeye ou saas ugu haadhaadaya tirxigu oo waxa weeye aan qofki markaad saas afka u kala qaado laleeyahay war isaga kaindhaji allaha allamaya ayaad kitaabka akrinaysaa ka warraba khiyaare ya waxaa keenahaya qur-aanka qiimihiisa ayaanan aqoon macnaha waxaa la rabaa qur-aanka markaad akrinayso inaad koobo isdiyaariso horta nadiif noqoto inaad weyse qabto waxa weyse qaadato inaad soo cadaysato adoo diyaarsan oo udgahayo carfahaya ayaa la rabaa inaad qur-aanka akriso markaas aad akrinaysana inaad ku macaansataa la rabaa qur-aanka tadabbur biqiraa'ati lqur'aan inaad ku tadabburto qiraa'ada qur-aanka rasuulkeenna waxaa laga wariyey calayhi salaatu wasalaam inuu nebigu istaagay hal aayad inuu ku celcelinayay muddo aada u dheer habeenkii uu istaagay markaasuu nebigu calayhi salaatu wasalaam biaayatin yuradiduhaa xataa asbax hal aayad oo qur-aanka ka mid a ayuu waxaa lay nebigu ku celcelinayay calayhi salaatu wasalaam aayaddaas waxay aheeday dhahaan culummadu in tucadibhum fa inahum cibaaduka markii nabi ciise ilaahay subxaana wa tacaala uu ka sheekeynayo hadduu dadkii loo soo diray in tucadibhum ilaahu haddaad cadaabto dadkaas haddaad cadaabayso adugu fa inahum cibaaduka addoommadaadii waaye saad rabta ka yeel war aayaddaasuu nebigu ilaa waagu ka baryey ayuu ku celcelinayay nebiga calayhi salaatu wasalaam
dadkii ahlu khayrka ah waxay ahaayeen qur-aanka markay akhriyaan jamaaco kamida dadkaas ama qaybo kamida ama shakhsiyaad kamidu waa suuxi jireen qur-aanka markay akhriyaan gobolkood waaba dhima jireen oo qiraa'ada qur-aanka inta macnaha ku tadabburaan oo aada u macaansadaan ayay dhima jireen waxaa la wariyey ninka la yidhaahdo bahsa ibni xakiim waxaa laga wariyey zuraarata ibnu awfa taabicigii jaliilka ahay ayaa wuxuu imaam ka noqda salaada subaxa ayuu dujiyey markaasuu faqara'a qur-aan uu akhriyey xataa balaqa ilaa uu ka gaaray faidaa nufiqa fi naaquur faidaa nufiqa fi nnaaquuri fadalika yowmaidin yowmun casiir halkaas markuu marahayo khara mayitan asagoo maydow dhacaalay taabiciga jaliilkaa inta la yaabay qur-aanka macaankiisa iyo cajaa'ibta oo uu iska leeyahay qur-aanku war ka warrama weligaa iska dhaaf inaad kuftood qur-aanka la socdee weligaa ilinuma kaa timid adoo qur-aanka akrinaya ama dhegaysanayo qof akrinaya gobol kamida dhalinyarada waxaa laga yaabaa hadday dhegaystaan ninka la yidhaahdo bajaajla boy iyo baaquli boy iyo sharma boy iyo balaayada wada boyda hadday dhegaystaan inay jadboodaan saa iska siyaa laga yaaba saas ya sida habar ruuxan ugu soo degtay ya qur-aanka kariimka haddii lagu dul akrinaayo oo lagu celcelinayana hal mar hataa xaadiisu waxa waaye kor u kici mayso maxaa keenaya mataqaan inaad bajaajla boy baaquli boy iyo waxa waaye sharma boy aad u jadbooto qur-aankana aad u jadbooweyso waxay keenaysaa qalbigaaga wuxuu ka yahay qur-aanka waa ka faaruq waay macnaha war kama haysid qur-aanka mana jeclid qur-aanka waxaa la rabaa qofku wuxuu jecel yahay inuu ku qiiroodaa la rabaa oo ku jadboodo ayaa la rabaa sida salafkaas iyo raggii khiyaarta ahay ay inta u mir daboolmaan ay u dhici jireen ninka warkaan sheegay oo bahsa bni xakiim la yidhaah wuxuu yidhi fa kuntu fii man xamalahu anugu waxaan ka mid ahay oo dadkii qaaday taabiciga jaliilka dadkii ka qaada meesha oo ku dhacay ee waxa weeye wax kastoo asturan ka mid ahay oo leeyahy ka warraba qur-aanka ilaahay saas waayo saasaa loogu macaansan jiray shan walxaad oo qalbiga lagu daaweeyo qur-aankaa ka mid a qalbiga hadduu kaa jirado oo malaria kaaga virus hadduu qalbiga kaaga dhaco waxay dhahaan culummadu dawaa lqalbi khamsatu ashyaa qalbiga waa la daaweeyaa shan shayaana lagu daaweeyaa shanta waxaa ka mid a qiraa'atu lqur'aani bitadabbur qur-aankoo la akriyo iyadoo lagu tadabburahayo oo la fiirfiirinahayo oo waxa weeyaan macnaha qur-aanka la dhuuxahayo sababtoo ah waxaa ina ka mid a qaybo tafsiirkii la baray oo waxa weeye mashaayikhdoodiiba hadda ay nala joogaan oo tafsiirka qur-aanka yaqaana hal aayad haddaad taqaano ku tadabbur macnaheeda ilaahay subxaanahu wa tacaala ku xasuuso cabaad ibni xamsa ninka la dhihi jiray gabadhii la dhihi jiray asma ayaan u soo galay oo yidhi ninka asaga wuxuu leeyay dakhaltu calaa asmaa radia allahu canha wahiya taqra'u famana allahu calayna wawaqaana cadaaba asamuum aayaddaasay akrinaysa uri markaa u soo gelaayay fawaqafad cindahaa aayaddaas agteeda ayay joogsato yidhi gabadha asma la yidhaahdo fajacalat tuciiduhaa wa tadcuu waxay gudagashay oo yidhi inay aayaddaa ku celcelinayso oo ilaahay baryayso markay soo qaadataba aayadda famana allahu calayna wawaqaana cadaaba asamuum famana allahu calayna wawaqaana cadaaba asamuum famana allahu calayna wawaqaana cadaaba asamuum sidaas ayay odhanayso yidhi gabadha ayada ah markaan arkay fadaala calaya daalika waxaa igu dheeraaday oo yidhi intidaarkii iyo sugitaankii aan sugahayey saan usulahay famana allahu calayna wawaqaana cadaaba asamuum waa ay dhammayn doontaa gabadhaanu marka xaajadii iyo dantii aad ka laheed ayaad u sheegi doontaa
فضال علي ذلك ويقول ديراتي وارنتاس سانو تاغنا مركان دالي فذهبت الى السوق يوري سوق يعني اسكا اداي ومركي دم دنا لهاي دنا ايدا كرباي كبعدنا السوق رباي ما دام ugu dheeraaday kama bixi diiday quraanki way iska tagay suuqayga ayaan iska aaday faqadaytu haajati muradki iyo danti aan lahay oo suuqa kala hay ayaan soo gutay thumma rajactu waan soo laabtay markaan danti suuqa ka soo gutay oo hawsheedii soo qabsaday ayaan soo laabtay وهي تعيدها وتدعو ووصديبا سوقي انت انا اداي يوصلها waa dhameysatay bal ku laabo waaba ku celcelay ilaahay bariya sidii leew famanna Allahu alayna wa qana adab as-samu halki ayay wali taaganta marti halki aan uga tagay ayay wali maraysa waa isaga tagay marka ila wax way imama jeedaba waaba gabar maqanba ilaahay subhanahu wa ta'ala ayay arimiisa ku takhasustay وحواي شر عالمية كجرتها يا شر عالمية أي إلهي كل جرتها سبحانه وتعالى حال رها مركة آيات هداد معنيه تقانه قف يرير كما أنت أقبلا ضمن تفسير القرآن كوحكفها سنين أما سورة قبل الله آخر أما وحواي سبعياء أما جلاديه أما جسس الله آخر وكيريه سيد رادي وعلى الرواء قرآن كمركة الآخرايو إلا تدبره سيدا يهاجرين خيارتي ونكسنين iyo dadkii sheekhu ka sheegay salaf saalix waxa kale la rabaa quraanka marka la akhriyo illa ooyo ma ooyida adiga ma ooyida laba ulad hadaan kugu dhufatay qeyla dhaanta dariska soo baxayaan ila macallim waqti xoogay wax waa taaba waqti mar casga looga waayo suuca la isku adkeeyo mar xoolo la isxanjafaa usha markii la soo qaato macallim soo qaato alla macallimo ka bilaabay halkaas hal mar haday kugu dhacdana wada iyo qeyla dhaanta daris wax shilay macallinka maanta ha ku dhacay dadkii waa ardadii waa baabash hal ulan ka maraya ushi hada saasugo ooydi waliga quraanka ku macaasida ma ku ooydi quraanka waliga ma ku ooydi nabigu muxuu leeyahay alayhi salaatu wasalaam asagoo ka hadla arintan iqra'u alquran wa roy quraanka aqriya wabku ooya markaas aad quraanka akhrinaysaa فإلم تبكوا هدارنا أوين ودد أوين قلبي جود أو سنجر عصرين أو مركي أي قرآنك ساس أب العوام بأوين أي سنسودك دقي هداتهين نقوم حوليه فتباكوا أوين تسككنا أوين ها سكر أوين وأنا جرك نجر عتو قلبك دنا حقي سا أديك دينا وعرفت إسحب رسالة رضاه نين أويا أسكنك مركب دم والله قبسي أسي كصوفك وشوا هل مربش دي لسمويد ساس عملي اللي انتو سيسو ديار قروبي يا مركو على القرآن كمرك الآخرين أيو وحواي إلا أويو أو قرآن كاللغو أويو أوين تاس لغو أويو قرآن كنا وصفة العارفين دادكي وناك سنة المامتي أي لها ينوي وشعار عباد الله الصالحين الضوامد إلهي وهاها يكسن وناكسن أستانتو رويان ما هنعيب يعاي منا waxaan ku soo qatimaa waqtigan hayee ahlul quraan waa la soo dhigtay quraankii madaaristi quraanka iyo ardadii dhowr jiha laga soo weeraray marka waxa la rabaa adduunyaduna way isbedelaysaa waagi hore waxa la suubi jiray dadkaan markii la keeno macallinka afarta laga saari jiray wujuudiyo u gali jiray 5 sano 6 sano oo arday inta haysto oo carbiyo oo kala bari jira bal xifdiska dhaafin aayad la xifdiye jusaska quraanka iyo ahsaabta quraanka iyo maqrooyinka iyo jalaadiyada ayo macallinku xifdi jira waa urug macallinku qiyaar oo lahaay midka anigu aan dhalo kala mid ah oo uu ahay macallinka sacuugi loo keeno quraanka in bar leeyahay maanta wax ma jiraan habartu waxay rabtaa cunugga quraanka la baro ina laga taabano ula taabsan waa rabtaa hadduu casrigu goofo in la soo daayo baastadii iyo bariiskii doonto waa rabtaa oo haddii la yidhaha saaka quraacmadii macallimo gaasa u dishay gaas allah kuu dilay inay kasoo fakataa hataa laga yaabo marka inkastoo maamooyinka anaga fiican yihiin oo duca qaban yihiin oo wax iska roonnahay haddana saameyna nagu yeelanaysaa cunugii qur-aanka iyadoo loo dhammayn maamadu waxay rabtaa inay iskool geydo ama adagii iskool u geeyaa culey macallimow meesha ma la iska fadhaa waqtiga cunuga ka dhubaa de wax loo hayo waxaan ugu haya xeeyin waqtiga ka dhubaa waa qalad moogta waqti ka dhuma diinta ilaahay la baraya sooma waalidkiina halkaas ayay marayaan waxa kaloo ka sii daran oo waxa soo isku fuuqsaday
بلايا صادقت أسبوعي هذا لا صدافه وحنا أركيني سوشيال ميديا إيه فيسبوك إيه أنت وسائل الإعلام كدمان وحاقب صديق كجري نين معلم قرآن وأهل قيرة ولا ليه هاي وحوك في صدق قبل القرآن كودجاي وحاس وحا أربوشة هي أو قدر كتاجن ضد إلهي سبحانه وتعالى الدين كيس إلى عبايان ربا معلمين تاني أفلاقات ديان ربا دبضا إلا قاوسة ضد ربا أو تغفلها مرة صوب الناستي أو مصر كي تورتي أو ماشا قارعت ضد قارعت أو أسطر كينا سكنعي دين الإسلام كان مرة كتاجي أيات دبت تاجن كيسكي والله باري معلك والله حري لو سمريبي كده على قصداس معلك مركي اللي حري والله حبسيه محكمة على صار معلك هبريه جاني المه ودينا وصادقتين كيسكي والله باري بينه ونقض ابر dadka kamida mas'uuliyiin dad kamida oo islaam taliya ka ah meelaha Muqdisho booliska Soomaaliya saraakiisha ugu sareeyay kamida ayaa beejkeeda waxay ku daawacday inuu macalinkaas kufsi geystay macallimiinta dugsiga xoogay ay gabdhaha shaafteeyaan warkii waa beenoobi kiiskaas been oo noqdo maxkamadda la geeyay dad loo xil saaray waa la soo waayay kiiskii ilaa hadda wax la yaqaan raali gelina kama aynan bixin kaligeedna ma ahna boqolaal la mid ah jira oo fisqigaas iyo munkarkaas iyo balaayada kitaabka Ilaahay la maagan horta marka duulaana socda dhalinyaro waxaa la rabaa inaad diinta ku dhagaraatiin been yaa leeyni sheegin iskuulada hala dhigto laakiin iskuulku nidaam iyo system uu leeyahay arday walba hal rabaa inuu macallinka amar qaato macallinku waxa waa adiga meesha wax u joogtaa inuu adiga ku tarbiyeeyo inuu wax ku baro inuu adiga ku soo saaro ayuu subax kasta soo shaqo tagaa anaga hadda macallimiinta madrasada nahay 12 subax kasta nimaadna hadaf kale mari dadka in diinta la baraa u nimaadna gaar ahaan quraan kariimka in la baro marka iskool waa lagu fasaxad iskool lagu diidma laakiin nidaam la rabaa yaa laga dhacay iskool janna jirta janna gooniya ma jirto waa ku halkaan dhooban iskoolka inta ka soo baxeen meel ay ka shaqaystaan ilaahiin nin diinta bartay oo quraanka bartay oo shaqo la'aan la soo heli ma maanta si kasta loo wareego hal bil hadduu shaqo la'aan noqdo bisha labaad shaqo helaya laakiin waxa la helaa boqolaal iskuulada inta dhameeyeen jaamacadii heerka koowaad dhameeyeen master degree ku xijiyeen hadda inay doctorate yihiin ama PhD qaateen weli aan shaqo haysan la soo helaa marka Ilaahay nimco uu siiyay cid Allah cid kitaabkan Ilaahay inay hoos u dhigto isku daydo tanqiis ku sameeyana ayadaa nusqaan u galay maahane kitaabka laba nusqaami karo ahlkiisana Ilaahay ya cizeeyay quraankuna inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu alhafidun Ilaahay quraanka asaga soo degsaday asagaana dadka u sheegay inuu quraankan Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu xifdinayo dadka quraanka oo dhalinyaradan gabdhaha wiilasha isugu jira ay kamid yihiin sharaf waxa ugu filan nabigeenu wuxuu leeyahay alayhi salatu wa salaam ahlul qur'ani ahlullahi wa khassatuhu ahlul quraanku ahlullahi wa dadka Ilaahay gaarka u ah waa ahlul quraanku ummadda Ilaahay yaa ugu dhow hadii la yiraahdo hal daa dadka ahlul quraanka ugu dhow quraanka yaqaana quraanka marka inaan ku amal falno Ilaahay nimcadaas uu nasiiyay nimcadaas weyn ka badan Ilaahay nasiiyay wax naga maqal lama arko waa ina Ilaahay shukr qol alxamdulillah 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 rabbil alamin Ilaahay ma hadsan subhanahu wa ta'ala muhadaradii waa dheeraatay mar labaad waxa uu mahad celinayaa Sheekh Xasan Qalif Ilaahay barakeeyo sheekana iyo dhamaan dadka daawadayaasha kuwa internetka nagala socda iyo kuwa xaadirka dhamaan waa maadsan yihiin quraanka Ilaahay subhanahu wa ta'ala Allah noo fududeeyo quraanka Allah noo sahlo macaanida quraanka Allah na fahansiiyo Ilaahay quraanka noo saqiro gaar ahaan dadka ardada ah oo ahlu quraanka Allah u saqiro xufad li kitaabillah Allah ka dhigo kuwa quraanka xifdiya Allah ka dhigo kuwa muallimiin noqda quraanka daa xifdiso nafsadaada kaliya aad u haysato waxa ka macna fiican oo ka macna baldaaran qofka inta barta dadka si bara hada xadiiska la sheegay Soomaaliya khayrukum man ta'allama al-qur'ana wa 'allamahu dadka waxa ugu hagaagsan dadka quraanka bara inta ayagu bartaan hadana si faafiye nabigu wuxuu leeyahay alayhi salatu wasalaam ardadan cid ku dul socota waxa ugu sharaf leh oo ugu khayr badan dadka ahlu quraanka wa khayru man dabba ala wajhi al-ardi al-muallimun maxay ku heleen sharaftaas wuxuu leeyahay nabigu alayhi salatu wasalaam kullama khaluqa diinu jadaduhu ya oo kama qaala alayhi salaam
مر الله مركي ليس لا دينته odayaashii soo kiciyo culimada qiyaarta ahay waa ka tukubeen markii la siri oo waxa waaye sariiray ku arureen waxa soo kacay waxaan quruxda badan soo baxay gaala marka maalin kasta waa naxe gaalo iyo gaala u shaqays subax kasta waa naxaya nin baqiil ajri jiraalay oo beesada ogolayn marka asagu tiisa maba ogola ninkaas marka uu arko mar wax dhiibaana waa naxa nina marka la sheekaysto niyow aniga أنا ورت وحمد ديباوي سيد مركب واحد ديبانا وأنا حاول واحد ديبدا سعيل كقباوي وبخيل موقتة مركب سورني ونكس أنا أقانه أصلا صدق بحين دايما أظن حدين دايما يدوري يا صباح قشوا أصلا وحب حا أطنا وأنا هو قال وشقيس صباح كستعيقنا وأنا حيا أنا أقول القرآن كاتجينا إن شاء الله تعالى أما ضد كاف لقادين معلمين تا أما وحوي هسكنا فيني مالك استوى نحيا دي اساس قرانك ugu cil qabaan maalinkaasna ilaahay subhanahu wa ta'ala ha ciisay allahna sharfo wa sharfay hay aisha lagu been abuurtay oo sawjadii nabi maxamed alayhi salatu wasalaam oo Abu Bakr Siddiq oo dhalay oo leeyahay waa zaaniyad hadith in ladina jaaw bil ifki Soomaaliya arag marka waxa way ceeb maahan wax la yaabana maano oo caamo iyo gaala raac laga malaysta maahan wax laga malaysa waaya maahan macna aad iyo aad ma santiin وقت دنبان مرينا انتاس ايام كسو كوبينا هذا وبالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته